wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Maxamed Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abukar iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa booqday dugsiga Sheekh Cali Cismaan oo hore loo oran jiray Riis isla markaana ku yaala xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa waxaana wafdigan xubnahaasi wasiirada ku wehelinayay John Riis oo waa bixii dugsigan dhisay isla markaana loogu magac daray oo loo oran jiray Riis laakiin markii dambe laga bedelay isla markaana loo bixiyay Sheekh Cali Cismaan waxaana mas'uuliyiintani wafdigaasi oo horkacaya John Riis soo booqdeen qaybaha kala duwan ee dugsiga isagoo indheeyay dugsiga uu aabihii dhisay ee loogu magac daray waqtigaasi ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Maxamed Muuse Diiriye Master Riis oo ah ninkii aabihii loogu magac daray ee uu dhisay iskuulkan markaan ninkan aabihiiba de iskuul dhisay inankiis markuu inoo yimaado waa inaynu soo dhaweyno soo maha inaguna ninkii aabihii uu iskuulka inoo dhisay magaciisa loogu daray markaa wiina soo booqday de sharaf bay inoo tahay Soomaaliland shaqo kale uu yimid oo wuxuu yimid biyo mashruuc biyaha oo wasiirka markaa wasiirkiiba markuu uu ogaaday inuu sida yahay buu inoo keenay Professor Saciid Axmed Xasan waa professorka Golis haysta waxa iskuulka la naga qoray halkan aniga waxa la qoray muxuu ahaa 1964 dabadeedna hal class marka sanad dhiganaya daami oo cusub iskuul cusub laga dhisay ayaa laba class loogu bedelay xaafadda ayada fogeedo xagga ahaydo dibadna waan iska soo bedelo Sheekh Bashiir iskuulka la yiraahdo ama Riis loo oran jiray Fisher markii hore ayaan galay meeshan de nimankan way noo talin jireenoo inaga la ilaaliyay baynu hayn la gumaysta ma inaanahay intaas kadibna halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis oo sheegay in John Riis uu ku faraxsan yahay waxaan anigu idin leeyahay marka horta waa maalin wanaagsan bay Riis u tahay farxad leh wuxuu ii sheegay isaguna inuu ku dadaalayo inuu Riis wax la qabto dhanka kale isaguna halkaas waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ninkii halkan iskuulkan dhisay Riis barasa balkan ka jiray 1900 labiyo kotak sidii afartii ilaa labiyo kotak wax weyn buu ka qabtay John oo inankiisiya waxaan ka rajeynayaa iskuulkii aabihii dhisay inuu isna dabaq ka dhigo ama dayactir weyn ku sameeyo waxa laga baranayaa inaynu inaga lafteenu aynu sii horumarino da wixii la qabtay sidoo kale isaguna halkaas waxa ka hadlay John Riis oo sheegay inuu ku faraxsan yahay maanta inuu soo booqday dugsigii aabihii uu dhisay We here to welcome all the students that are in the school and we want waxaan aad ugu hambalyeeynaa sida fiican ay ardaydu noo soo dhaweeyeen waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta ay keentay dugsiga waa bay dhisay waxaan naga go'an inaan dugsigan caawiyo waliba caawimo dibadana aan u raadiyo adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida